تضبط الله مسلمين ولا ويرريا تضبط الله مسلمين ولا ويرريا ما كان يدوا ما حي سببتنا سببت أنا وبقول لي مش يجيب بيدو قرن مايو وتضبط وعراق سوريا لبنان ليبيا صوماليا السودان إيران تضبط بهذا والله ويرريا وقت يعني كورمينه يعني تضبط شيء نبا تضبط با والله ويرري وقت ياسي كذب ساشي سويدين تلو حي تهاي هرقل بيتكم حين قربان ضعفاء ومساكين وحبي لين وملع الله اسكفرديا maxay ku falayaan oo ay ku xog badan yihiin dilistooda waxay yiraahdaan dargalbeedku waxay rabaan waxay u bixiyaan nimankaasi toddobadan wadan weeraraya al-fawda al-khallaqa waxay yiraahdeen kaos baanu ka rabnaa meeshatan ama si kale hadaan u tilmaamno waa taqsiim al-muqassam markii hore Sykes Beacon waa la googooyo wadamada yar yar baa laga dhigay markii la hubiyay mid walba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooyntii soo noqonaysa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan al-fawda al-khallaqa creative chaos waxay yiraahdaan oo waa maxay macnaheedu waxa weeyaan bay yiraahdaan decentralization then the government will be the UN bay yiraahdaan وإن وضننا تن دولة نمدو ذا اللبابية decentralized لقى دقا عدة كتالين إنسانة وين نقطة أنت ما أنت الصومالية كتالية دولة دين نقول مركين وضعات لأن السوشياجنا دولة دي يقبل الله يوحوين الشياجنا دولة كستا يقبل كستا أفر وزارة دو كم يدبا هيئة UN تابا وحسيساي هوستكتا وحي سمين كرتا مجرتو إنه هيئة داكو نقطة مويان دور وزارة UNDP باوتاليا دور وزارة يونسكو باوتاليا دور وزارة سيف تجلدران باوتاليا دور وزارة كوا قحوتي باوتاليا هيئات كيUN ما يرهدان ماشان أنا حكومنا لكن أفر وزارة ده هيئات ده كحرن توكا تاليا ودمان صوماليا دعل لا دعل وزارة كستا أفر وزارة ده كستا وحي كحرين هيئات كواسي كمدا والديسنتراليزيشن كيشي جيين أهدبتنا government كونو UN تنقضه وهيدا هذين مركي هوري دولة centralized ذاك الشيء إما كمان فيدرالية لو بدل هذين federal states العراق ولا جوجوي federal states ولا قربا الصومالية ولا جوجوي federal states ولا قربا ليبيا ولا جوجوي federal states ما وضع نولان كرتان بلا ودلي السودان ولا جوجوي انتي سو هداي هدرا هدا لوغو سي ودا سوريا هداي كوان كسارنتي ولدي هore shiicadii waa laga saaray imika dheriga loo karinaya ilaahay setooda kama dhigo imika dheriga loo karinaya in shan gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyo yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadda loogu daraya saashay isweydiinta le wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay dhaadaan reer galbeedku isku dan qurayna oo lama wada dagaalamayo qolo diin bay u dagaalamaysaa oo hay'adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelistku u badan yihiin iyo waxaan oo dhami iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيتاغين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يكالي وحيود قالما يندق على أهان وعالم الإسلامي لبشا يبقى لقربا بشر متدربة قف بني آدم وحلبران دولة خرج كقبحن هل تسألان نسيو يرو مركي لسكو فري أي بولن وحا كدريري دادكو دي أقويهن كاها وايا العق بدن با لغوها يا يوروب تقلبات دبتنا دخاتيرتي انجنيرادي وحي با جرمالكا وقوري جرمالكا العق بدن كسبين يا دولة بولند waxay soo xisaabtatay qof walba wixii kaga baxay dabeetana jarmalkay ku ashtageysay lacagta inta lagina soo celiyo haduu dadkii qaatay dadkaanu soo saaray inta soo kharashka ku baxday dadka raad qaadatay soo celi
يوروبا ليسولتك شرمال كان لو حكومay inuu lacagta dees ka bixiyo ilaa dadkan dad ba wax bartay iyadoo halka maraysa ayaa Suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba la bay heleen booliska waxay yiraahdeen ka xaysta dadkiina uma baahnine waxa la helay badiilkii oo laga keenay xagee laga keenay Suuriya baa la helay idan bashar mutadarriba way u baahan yihiin way dhali waayeen dhalinyaro u xoojisay u baahan yihiin man power bay u baahan yihiin hatta kuwaan wax garanayn waa loo baahan yahay iyagoo man power waxa kaloo caalamka islaamiga yaala khamaat rakhiisa waxa la leeyahay waxa macaadin loo baahdiyo shidaal iyo everything oo talata beestan laga siisto marka qolo aan diinba iyagu rumaysanin iyagu waxay kula dagaalamayaan mentality-ga ah dhaqaalay u dagaalamayaan qoliya kale waxay caalamka islaamiga ula dagaalamayaan geopolitics waxay u arkaan mantiqadan cid xukunta inay dunida xukumi karto hatta hadduu dhaqaale ahaan ka maarmo wuxuu arkaa mantiqadan maamulkeedu waayo wixii uu ingiriisku u bixiyay the checkpoints waa meelahan wadannada marka la soo galayo laga galo waxay dhahdaan dunida 8 checkpoint ba ku yaala 7 caalamka islaami ku yaala kabana makanaalka ku yaalo qura ayaa ka baxsan inta kale laba turkiga ku taala mid waa jabal tariq mid waa kan ku yaala Suez Canal mid waa kanaalkan Hormuz mid waa baabu mandab midna waa maalqa kan Indonesia ku yaala waxay dhahan checkpoints ka dunida oo dhan gacantooda ku jiraan haday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala gooyin karaan sida awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyada dib aynu uga warabi doonaaye waa inuu checkpoints ka gacanta ku dhigaa marka kuwa raba xataa le dhaqaalahan uma baahnin oo waanu haysanaa waxay haystaan oo dhami waxay leeyihiin laakiin inaanu mantiqadan xukunaa baan u baahanay qola kale waxay leeyihiin xataa haddii mantiqada laga maarmo waxaanan rabin model xadaara oo ka fiican ka iyagu inuu soo baxo dadkani waxay leeyihiin xadaara values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini aadamka qiimo uma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyadki iyo dadnimadii way dhimatay marka waxay leeyihiin ma rabno modelanka iyaga inuu dunida ka muuqdo oo sawkan China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin تنافس دقالة نقدر حيا لكن حضارة اسكوبا هينو ما value اسكوبا هينا بيلين لكن كوا كان هذا يصاب حام بيلين وvalue عصبة الدنيا كسر كردية وسيستم كيجي كجديسن ولذلك أفكار تودرنا المكان اسكو صاد الرب بكل طوائفهم كوا متدينين تا كوا ملحدين تا كوا مركز اسكو صاد ضدرته وحيلين ماشي عسينا ضعيفة حتى دني نوجرته